السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبيال halkani waa Duuli Media kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta kaliya wuxuu ku saabsan yahay marka hadlayno taariikh marka hadlayno maxaa ku leedahay shakhsi caan ah oo taariikhda hore ah marka hadlayno kaliya waxa ka hadlayna maanta saddex qodob oo ah in la baraarujiyo aad u muhiim u ah qodobka koowaad wuxuu yahay waxyaalaha ku soo kordhay baraha bulshada Soomaaliyeed muxuu yahay sida aan ognahay inta badan dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad waxay aad ula socdaan waxyaalaha baraha bulshada gaar ahaan kuwa Soomaalida baraha bulshada Soomaaliyeed waqtiga hore uu bilaabanayay waxa mooday inuu ku bilaabmay si macnaha taxaddar lahayn oo aan loogu fiirsanin inuu ku bilaabmay oo macnaheedu tahay inaysan jirin dawlad ama urur ama dad isxilqaamay oo baraha bulshada xakameyn iyo maxalta fitrad ku sameynaa inaysan jirin oo ku bilaabmay gacantana u galay dad wax magarata oo maata oo macnaha aan aqoon waxaana xumaanay waxaana samaana haddii og yihiinna ay macnaha ka tambadisay la qabsiga ama la socodka dadyoga kale waxyaalaha qaarkood marka aragtid oo baraha bulshada ku aragtid waxaas leeyahay dadkan maxaa ka qaldan ma dhaqanka islaamkii bay dhinac uga baxeen ma dhaqanka Soomaalida ku filnaa waaye marka waa arin aad loo macnaha oo loogu xishoodo waxyaalaha qaarkood oo aad ku arkaysa baraha bulshada waxaan kula talin lahaa qof walba baraha bulshada wax soo galiya haddana noqoto Facebook haddii noqoto TikTok haddii noqoto YouTube Instagram waa badan yihiin waxyaalo badan kala ku soo biiray waayadan dambe balse ma ahan qaabka aad ugu faa'iideysanaysaan baraha bulshada ma ahan meena aad ku luminaysaan da'yarta oo ku jirta qaarkood waxbarasho ku jiraan qaarkood maxaa ku yiraahdaa oo cilmi ama ka faa'iideysi wax ugu raadinaya haddii aad ku soo sheegalaysid waxyaalo xun oo aan isaga faa'iido u lahayn qof bini'aadan waaye shaydaana ku xariira wixii ay u daawanayaan arrinta waxaan ugu gol leeyahay dadka waxyaalaha xun sheegareynaya ilaahay ugu cabsada qofka sameeyay iyo adiga isku dambi ayaa tihiin sababtoo ah qofkan uu sameeyay shaydaana ku qaada adigana shaydaanka ayaa kaalmo u noqotay waa qodob kale waxaa leeyahay waalidiinta ilmaha dhashaan ilaahay ugu cabsada oo tarbiyada islaamka tarbiyeysan oo loogu talagalay dadka in lagu tarbiyeeyo oo ilaahay noo soo dejiyo ummadda in lagu hogaamiyana ciyaalkiina iyo awlaadda ku tarbiyeeya marka hore teeda kale waxaa samaysaa waxaa la socotaan dhaqdhaqaaqa cunugaaga iyo wuxuu sameynayo iyo wax walba uu sameynayo la soco waxaa arkaysaa gabdho badan ama wiilal badan oo ku dhaqmaya waxyaalo anshax xun oo haddaadan adigan oo macnaha aadan fiirsan karin hataa waalidiintan waxaa leeyahay caruurta gacan adag oo saaxiibtinimo ku jirto lagu qabto qodobka saddexaad waxaa leeyahay dadka baraha bulshada wax soo dhiga idinkana mas'uuliyadda idinka saaran inaad waxyaalaha xun dadka ma wada xuma qayb ka mid ayaa xun qayb ka mid ah waxaa waaye doonta haddii maxaan ku yiraahdaa laba qayb ay ka dhisan tahay qaybta hoose ay rabaan ay oomaan ay rabaan inay biyo ay cabaan dadka korena aysan biyaha siinin dadka hoose ay dhahaan qaybta biyaha noo dhawe qaybta hoosaan kala baxayna biyaha ma dadka kor u weydiinayna haday dhahaan doonta ay ka fujiyaan maal alwaax mid ka mid ay fujiyaan doonta dadka wada halaagsamaysa marka doontan waa la wada saaran yahay waxaa sameynaysan in adeeryaalow naga daaya waxyaalaha xunka oo baraha bulshada ku sheeganaysaan dadka ka shaqeysta inay dumarka jirkooda iyo maxaa ku yiraahdaa ay tilmaamaan ilaahay ugu cabsada maanta waa adduuna birin aakhira waaye wixii aad horumarsatida wax ku tiri doona waxaa sameynaysan waxyaalahaas aad sheeganaysaan waxyaalaha xun waxyaalo wanaagsan oo laga faa'iido ayaa ku jira macnaha baraha bulshada lana sameyn kara in la soo geliyo adigu aan ku mashquulin garowlaashada oo qalad ka dhacay hadduu qalad ka dhacay inaad u nasteexaysid aaqabad walaal waxaan kuma haboona
aad dhahayd ma ahane, laakiin inaad ka hadashid oo sawirkeeda aad soo qaadatid oo baraha bulshada aad soo gelisid, adiga iyo qofka sameeyey isku mid ayaa tihiin. waxaa leedahay dumarka gaar ahaan oo nasteexanaya, waxaa leedahay ilaahay ka cabsada, quruxdiina ilaahay idin siiye, maxaan ku dhahaa ku caasra, ilaahay caafimaadka ku siiyey, beri waxaa waaye waa hanuunsan kartaa, waa jiifan kartaa, oo ilaahay wuxuu awoodaa inuu awooddu dhan kaa qaado, afka keliya ka hadashid oo awoodaa. waxaad samaysaa alxamdulilah inaad dhahdid jirkaaga astur oo maxaan ku dhahaa xijaabkaaga qaado, ummaddan ha fasahaadinin. teeda kale lamid ku daraya, midka ku daraya xataa sideeda hadaa aragtid ummad akhlaaqdeeda sii dhimanayso waa ummad sii baabayso. xaqiiqatan ummad markeeda rabo in la baabi'iyo ama la gumaysto oo ama la dooriyo dhaqankooda la bedelo, waxaa laga fasahaadiya, dumarka laga fasahaadiyaa. arrintaasna waa muuqataa, arrinkan lagu baraarugo. hadalkeyga wixii xun waxaa waaye shaydaana ka ahaato, wixii aan sameeyey oo wanaag ana oo kusarkay ku jirana ka faa'iideyna, waxaa idin leeyahay ilaahay nagu anfaco, alka cabsigana aan badino. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatu.